Grammar waa qaybtani naxwaha present continuous passive construction. Goorta xaadirka ah ee socoto ee dhismaha codka maldahan ayaynu ku baran doonaa insha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English with Susman official channel. Grammar waa qaybtani naxwaha waxaan soo qaadanay the first tense koowaad oo simple present tense passive construction. waxaan haddana ku baran doonaa videogan present continuous oo ah kii labaad passive construction dhismaha codka maldahan. Present continuous tense goorta xaadirka ee socoto passive construction dhismaha codka maldahan marka la baranayo muhiimadiisa koowaad waxaa ah qaacidada tenniska inaad taqaano. midda labaad waa inaad garanayso qaacidada passive-ka uu ku shaqeynayo. wax badan baan kaga hadlay videoga hore oo simple present markaan qeexayay 12 tenses oo ku jiraan. waxaad kaga bogi kartaa barteeda YouTube-ka Susman official channel. inta waxaan kusoo afmeerayaa wixii arar ah ama hadal ah. waxaan u gudagelayaa sharaxaadda. muhiimadda waa sharaxaadda iyo fahanka adigu aad fahmi karto. Present continuous tense passive construction goorta xaadirka ay socoto dhismaha codka maldahan. Formation of formula qaacidada ay dhiyada. Subject waan soo gaabiyey. Subject oo la soo gaabiyey waa yeelihii muhiimadda koowaad. Plus waxaa lagu darayaa tenniskan marka la isticmaalayo is are oo saddexdan loo yaqaano verb to be ficil caawiyaal ama helping verbs. Plus waxaa lagu darayaa being oo wax hadda taagan ah oo kuu muujinayo ama kuu qeexayo ama kuu cadeynayo inuu continuous tense yahay. tenniskaas mid hadda taagan oo socdo inuu yahay ama fal tilmaama mid hadda dhacayo. Plus waxaa muhiim ah past participle midkuu doono ha aado waa inaad taqaana falkaas past participle-kiisa. ilaan kuwo waxaa jiro aana garanayn waxa uu noqonayo past participle-ka. way kala duwan qaab waxaa la yiraahdaa regular kuwaan soo geliyey by adding d kaliya ayuu lagu darayaan dhigay. ed baan keeni doonaa iyo kuwa la yiraahdo irregular verbs-ka. way kala duwan. muhiimadaas waa intaas muhiimadiisa markaad passive baranayso. Plus waxaan raadinaynaa markaa asaga by oo preposition-ka passive-ka ah plus kadibna object agent-igi baa raadinaysa mafcuulkii waa inaad heshaa. object iyo subject muhiimadiisa. subject-igi waa inaad ka dhigi kartaa object. object-igi waa inaad ka dhigi kartaa subject markaad caadi ka dhigayso active voice. muhiimadda horena waa u sheegay haddii aad hesho yeele loo geeyey ficil caawiyi being aad keensato kadibna passive participle aad isticmaasho passive-kaas waad samaysay. inta dambe oo dhiman waa nasense must ma ahan inta badan. examples tusaalooyin baan kasoo qaatay passive construction-ka qaybtiisa koowaad oo passive voice. I'm being helped waa la caawinayaa wey. macniyan xitaa marka la fasirayo isma laha. I'm being helped waa la caawinayaa. waa wax hadda taagan ilan. qofka la caawinayo markan waa adigi. ilan subject is the doer of the action. object waxaa la receiver of the action baa la yidhahdaa. waxaan yidhi marka tusaalada koowaad I am being helped waa la caawinayaa by him. wuu i caawinayaa wey. haddii sida kale loo fasiro waa la caawinayaa oo asaga ay caawinaya exactly. I'm being helped by him. midda labaad she is being insulted waa la aflagaadeynaya. she is being insulted by you waa la aflagaadeynaysa exactly. you are being taught grammar by us. you are being taught waxaa lagu barayaa ama waxaa la idin barayaa. la you waa both singular and plural labadaba nafar iyo jamc weyta. you are being taught grammar waxaa la idin barayaa naxwo ayaa la idin barayaa by us. they are being told a story waxaa loo sheegayaa sheeko waa wax hadda taagan oo now action ah. they are being told markaan leeyahay passive participle waa muhiim. ereyga told presentkiisa waa inaad garanaysaa oo tell inuu ka yimid u yahay. tell told past iyo past participle saasay noqonaysaa.
they are being told waxaa loo sheegayaa a story sheeko ayaa loo sheegayaa by me. We are being taken to school waxaana la geenayaa school ama iskuulkaana loo wadaa. We are being taken to school iskuulkaana loo wadaa ama iskuulkaana la geenayaa by them. Active voice intaas aan soo sheegay active code marka la isticmaalay marka he's helping me wuu caawinayaa waa inaad u garanaysaa teenisaan marka active form ku yahay. You are insulting her waad aflagaadeynaysaa iyada. You are insulting her waad aflagaadeynaysaa. We are teaching you waxaynu ku baraynaa grammar ama waxaynu idin baraynaa grammar oo naxwo ah. I am telling them a story waxaan u sheegayaa ayaga sheeko. They are taking us to school waxayna geenayaan iskuulka ayayna geenayaan anaga. activekiisina waa kaa. Thanks.